falaqeynta ciyaaraha ee horyaalka Premier League ee Sabtida iyo Axadii la soo dhaafay ayaan fiirin doonaa iyadoo dhameystiran waxyaabihii laga yiri Chelsea oo guul weyn gaartay iyo sidoo kale kooxaha kale ee Premier League waaweyn dhilay ayaan fiirin doonaa. Kooxda Chelsea ayaa horeysay waxaana dhashay Sabtidii oo ku beegnay taariikh 30 ee August 2025 waxaana dhulkooda u saxay weeraryahankooda cusub ee Joy Pedro markii mareysay 49 daqiiqo macnaha qaybtii hore markii lagu daray 9 daqiiqo ayuu dhaliyay gool halka qaybtii labaad markii la soo laabtana ay gool kulaad ee helan Chelsea waxaana u saxay Fernandes ayaa u saxay qadka dhexe ee Chelsea ayaa u saxay Fernandes ayaa penalty u saxay halka ay ahayd waxa la jiray kooxdan kale ee Fulham iidan laga diiday far goolka diiday marka ciyaarta ay ku soo ilaatay 2-0 halka Chelsea ay hadda leedahay 4 dhibcood maadaama ay badisay 2 kulan hal kulan barbar cayrishay hadii aan isla maalinta Sabtida waxa dheeshay kooxda Tottenham ayaa dheeshay iidan gurigeeda 1-0 ayaa ku duwatay kooxda Bournemouth sidoo kale Everton iyo Wolves ayaa dheeleen Everton ayaa 3-2 ku badisay Wolverhampton Wolves baryahan waa Everton ayaa kacsan waxaana ka dambeeyay gool koowaad Beto Jack Grealish ciyaaryahankii hore Manchester City ee ruulay oo ma ugu diray Everton ayaa guulahan ay gaarayaan 2 gool ayuu caawin ka sameeyay hadda ciyaarta kale ku xigtay waxay ahayd Sunderland oo 2-1 ku garaacday Bradford Sunderland gurigeeda halka ciyaarta xigtay ee Newcastle iyo Leeds United barbarac ever halka Manchester United iyo Burnley oo iidan ku dhamaatay 3-2 Manchester United ayaa farcid ku baxsatay gool koowaad waxa iska dhaliyeen gool ee kooxda Burnley waxa goolkaas hadda baraajiyay Foster ayaa baraajiyay streetaha ee Burnley halka hadda Bayern Mboma ayaa gool dhaliyay meesha 2-1 halka 2-2 Jadon Anthony baraajiyay 2-2 laakiin balse ciyaarta ayaa 90 daqiiqo markay dhamaatay kadib oo 7 daqiiqo dheer loo daray ayaa Manchester United waxay heshay gool kulaad goolka soo istaagay kabtankeeda ee Bruno Fernandes ayaa u saxay ciyaarta ay ku soo ilaatay ugu dambeyn 3-2 halka Manchester United ee guushooda u horeysay ee horyaalka ay ka gaartay kooxda Burnley oo Old Trafford maadaama labada kulan hore kulan ee Arsenal ka basay koowaad kulanka labaadna ay barbarac la soo gashay kooxda Fulham halka ciyaartii labaad ee maalinta Super Sunday ciyaarta indhaha lagu hayay waxay ahayd Arsenal iyo Liverpool intaan aan gaarin toor ciyaartii Wolves waxay ahayd Northampton Forest iyo Wolves iyo West Ham ay 3-0 ku soo badisay halka ciyaartii labaad indhaha lagu hayay waxay ahayd Brighton iyo Manchester City iyadoo gool horumartay ayaa la baraajiyay qaybtii labaad qaybtii koowaad 34 daqiiqo markii Haaland ayaa u dhaliyay Haaland oo saftay kulankiisa boqolaad ee horyaalka Premier League oo uu dhaliyay 88 gool inta boqolkaas kulan uu dheelay halka James Milner oo ciyaaryahankii hore Manchester City oo bedel soo dhalay oo Royal ka dhaliyay Manchester City ku baraajiyay halka ciyaarta markay mareysay dhamaadkii 89 daqiiqo waxa uu dhaliyay qadkeeda dhexe ee weerarka u ciyaar lambar 10 ee Brian Goroda ayaa u saxay 89 saas ayaa Manchester City loogu badiyay 2-1 halka ciyaarta u dambeysay ee Super Sunday indhaha lagu hayay waxay ahayd Arsenal iyo Liverpool gurigeeda ayaa ciyaartu lagu dhaxmartay Arsenal inkastoo qaybta hore ee Liverpool wax fursado fiican ay awoorayay laakiin balse Arsenal ay fursado fiican iyada naftigeeda awoor laakiin balse Arsenal waxay sameeysay labada koox way kala cabsoonayeen inkastoo Arsenal ay sameeysay fursado badan sida koornada iyo waxyaabaha sababtuna ka faa'iideysto laakiin balse difaacyada dheer ee Liverpool ayaa u diiday sida Van Dijk iyo Ibrahim Konate halka Liverpool ciyaarta qaybtii koowaad ee lagu kalaastay ever qaybta labaad soo laabtana ciyaartu ay sii socoto markay mar 83 daqiiqo Sabesla ayaa dhaliyay gool free kick oo mucjiso ah oo Liverpool ka caawisay guushaas oo 3 dhibcood ka qaadatay Arsenal halka Liverpool 3 kulan ay si toos ah u wada badisay inkastoo Liverpool uu saacidinay nasiibka maadaama ciyaarta koowaad ee horyaalka ay ka soo badiyeen 3-2 ay ku badiyeen aqar sac halka ciyaarta labaadna ay ka soo badiyeen
Newcastle United haddana saddex ciyaar Liverpool oo la badan jiray laakiin nasiib ayaa saaciday sidoo kale waxaan eegi doonaa ciyaarta u dambeysay horyaalka isla Liverpool kadib Aston Villa iyo Crystal Palace ayaa 3-0 ku xaqday Aston Villa halka Toronto Aston Villa oo lagu baashaalay waxa gool koowaad u dhaliyay Jane Mateta ayaa gool koowaad u dhaliyay halka Madua kabtanka Crystal Palace gool u saxiixay halka Ismaila Sara 78 daqiiqo wareysay gool u saxiixay sidaas ayaa soo duulgareeyay hadda timetable hadaan ay timetable waxaan fiirin doonaa 10 kooxood ee horeysa horyaalka inkastoo bilaa u yahay kooxda koowaad u horeysa waxa Liverpool waxay leedahay 9 dhibcood iyo 4 gool halka Chelsea ay leedahay 7 dhibcood iyo 6 gool halka Arsenal leedahay 6 dhibcood oo kaalin saddexaad 6 dhibcood iyo 5 gool halka Tottenham Hotspur ay leedahay 6 dhibcood iyo 4 gool halka Everton ay leedahay 6 dhibcood iyo 2 gool halka Sunderland ay kaalin lixaad ku jirto 6 dhibcood iyo 2 gool halka Bournemouth ay ku jirto lixaad 6 dhibcood iyo 1 gool halka Crystal Palace ay ku jirto 5 dhibcood ay leedahay 3 gool halka Manchester United ay ku jirto kaalin sagaalaad ay leedahay 4 dhibcood iyo 1 gool Nottingham Forest ayaa kaalin 10aad ku jirto waxay leedahay 4 dhibcood iyo 1 gool halka Man City ay ku jirto kaalin 13aad 3 dhibcood ay bas ay leedahay 3 kulan la dheelay Liverpool laba gool dara iyo waxay tahay hal kulan koowaad furtaan bas ay badisay Manchester City marka sidaas ayaa falaqinta roodi hadii fadlan idaa soo dhaarto muuqaalka waxaan codsanaa like noo saarto hadii ciyaaraha jeceshahay fadlan subscribe noo saaro muuqaalka noo share si dad badan u gaaro ku maasatay